بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام على رسول الله meeshaan horta waxaan ka salaamayaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan kulligood waxa waaye taliyihii saldhigga degmada Baxdo Maxamed Feere Geelle oo qoladii qawaarijta ahayd ay ku warbixiyeen maanta inay dileen oo ay meena iyo dhibaato ay u dhigaan ay ku dileen ay ku warbixiyeen meeshaan waxaan u sheegay marka in taliye Feere Geelle nool yahay caafimaad qabo asagii uu yahay waxa hadlaaya meeshaan aan joogo waxa kale aan sheegayaa qolada qawaarijta ah oo dulliga ah oo duliyaasha waxa waayaan qofkii tiisu gasho dhan meel uu joogo waxay ku faanaan inay dileen qof kasta meel uu joogo ku dhimanayo ilaahay baa u sheegay maanaysan dilin annaga waa noolnahay insha Allah annaga ayaa dili jirnay dileynana annaga ayaa duleyn jirnay duleynana ilaahay idankiisa waxaan sameynay maanta hawlgal aan kaga baxnay degmada Baxdo oo aan daba joognay qoladii qawaarijta ahayd falal ay xalay ku sameeyeen wadooyinka soo gala Baxdo oo dhinacaas loo isticmaalo dhuumoodlo ilaa qaayib ay galiyeen nagartii ay dadka ku adaateen jireen ayagoo raba dadkii awal ay maalkooda dhaceen xoolahooda ay qaasteen ay naftooda maalkooda duleeyeen inay ku sii dhibaateeyaan u dhigay wadooyinkii dhagar qabayaashu waxyaalaha ay isticmaali jireen meelooyinka ah alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay wuxuu nagu guuleeyay maanta dhagarta ay dhigeen inaan soo bixino in aan ku guuleysano saddex xabo oo ay dhagar qabayaashu ay meel galiyeen saddexdii bana soo bixino hal xabo oo xabadii ugu dambeysay ah ayaa waxa weeyaan waxay ku kacday si kadis ah oo maartay qalad yar oo si kadis ah ay ku kacday xabadaasuna wax garaafa iyo wax dhibaato ah ay maanta deegaanka Baxdo taliyaha iyo waxa weeyaan ummadii meeshaas ciidamadii ka howlgalay ay u geysteen ma jirto kulli hadduu dhib dhaco garaafa waa dhacaysa laakiin garaafadu ma ahan qofkaas inuu dhintay ama oo adduunka ka tagay ma ahan garaafooyinku waxa weeyaan way dhacayaan waxa weeye waxaana waxay qabayaashu ay galiyeen in dad ku dhibaateeyaan garaafa jirta laba qof garaafa yar gaartay waxa weeyaan wax annaga waxtay ma dhibaal ah oo aan caawa ka taxsanahay oo caawa nagu dhibaateeyeen oo dhacdana ma jirto waan nabad qabnaa qabayaashu waxa uu sheegaynaa waa kana waa noolna awalna waa dili jirna waa daba joogi jirna waa ceersan jirna haddana sidii aan xanuunsan jirna in xanuun jirna insha Allah meeshii aan ka daadigi jirna ka soo dhaadhacaynaa bartii aan ka dili jirna in ka dilaynaa haddaad ku faanteen waa dishay asaga in dilaya insha Allah asaga ayaa in dilaye waxa weeye meesha gal lahaydeen gala qarxiskini waa soo bixinay waa soo bandhigaynaa inaan noolhana waa tan haddaan hadlaynaa reer Baxdo waa guul waa nabad qabaan ciidamadu waa guul way nabad qabaan ummadda muslimiinta waxaan u sheegayaa dadka dulliga meel kasta ay joogaan in loo midoobo oo loo istaago oo la iska difaaco qofkii tiis u gasho waxay ku faanayaan anaga dilnay qofkii waxa weeyaan fiican ayaga inay dhibaateeyaan bay rabaan intaas aan ku soo gaabinayaa markii baa la jooga